بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد maanta waxaan halkan ka soo jeedinaynaa war saxaafadeed ku saabsan xaaladda gobolka Hiiraan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxa ay bogaadinaysaa howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanayo ciidamada dowlad goboleedka Hiirshabeelle ATMIS saaxiibada kale ee caalamka ka fulinayaan deegaanada gobolka Hiiraan. Waxaa si gaar ah u bogaadinaynaa dadka deegaanka oo si mug leh ugu soo baxay inay ka qayb qaataan ciribtirka argagixisada si toos ahna ugu garab dagaalamayo ciidamada qaranka. Waxaa mahad Ilaahay ah in ilaa iyo hadda laga xoreeyay cadowga deegaanada Teedaan, Bacda, Beergidiid, Jilacle, Madhooy, Hees iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Waxaa ugu baaqaynaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay u guntadaan sidii aan isaga xoreyn lahayn cadowga argagixisada. Wasaaradda Gaashaandhigga waxa ay ku howlan tahay diyaarinta qorshe ballaaran oo guud ahaan dalka oo dhan looga xoreynayo argagixisada. Dhiigmiiratada ah ee caqabada ku noqotay horusocodka, horumarka iyo guud ahaan danaha qaranka. Dhammaan geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee sida nafti hurnimada leh ula dagaalamayo cadowga waxa ay baal dahaba ka galayaan taariikhda qaran dhiska Soomaaliyeed. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.